xiriir haddoosan jirin ciyaalkan ma bixi karaan xulka qaranka Soomaaliya ayaa xiriirka inta laga tagaa waxa wasaaradda sporta ma wadayso taas waxa wax lagu qoslo waay waxa fiican Soomaaliya u fiican wasaaraddan u fiican xiriirka Soomaaliya kubadda cagtan u fiican in la dabaqo sharciga sida uu yahay wasaaradda ay u muuqato in dhinac la safato ay u muuqato yani waxa ay dhaqi kartana ma laha waxa ay qaban kartana habeeraatee ma laha qalin le waa mahadsantiin barnaamijka wada sheekaysi oo nagu timaadeen aad aan kaga mahadcelinaa ku saabsan arrimaha mugdiga sigila ee xiriirka Soomaaliya kubadda cagta iyo doorashooyinkiisa waxaan rabaa inaan ka hadlo sida ay codsatay dhowr arrimood inaan ka hadalno runtii iyo meesha maanta ay wax marayaan saa la socono dastuura jiro xiriirka Soomaaliya kubadda cagta oo leeyahay dastuurka xiriirka Soomaaliya kubadda cagta oo leeyahay in la raaco waa waajib oo yani oo la dhigay oo la isku wada waafaqay dastuurkaas waxa isku wada waafaqay dhammaan stakeholderska ama congresska oo yani dadkii hawshaas iyaga mas'uulka uga ah Soomaaliya oo dhan ayaa isku wada waafaqay waa dastuur oo sida la sheegay dimuqraadi dimuqraadi waxa ku dhaqanaa hadda dawladdeena waa dimuqraadi sababtoo baarlamaanka wuxuu ku dhaqmaa cod hal dheeri ku dhaqmaa dastuurkan xiriirka Soomaaliya kubadda cagta waxba kama duwano isagana waxa lagu kala baxaa dadka marka isqabsadaan waxa ama ku wanaagsanadaan ama ku xumaadaan waxa lagu kala baxaa cod hal dheeri lagu kala baxaa dastuurka congresski oo maaragtay arintaasi ka shaqeeyay waxay sameeyeen guddi oo doorasho sameeyeen guddigaas doorashada waa la wada aqbalay way iska jiraan dad oo dhahay guddi doorasho ma jiro guddi doorasho waxay sameyn karaan habeeraatee ma jirto laakiin runta iyo xaqiiqada iyo waxa meesha ku qoran marka loo yimaado ileen qof kasta fikirkiisa ma lagu shaqeynayo qofka fikirkiisa ma lagu shaqeynayo waxa lagu shaqeynayaa wixii lagu heshiiyey oo congresska uu ku heshiiyey kaas kaliya ayaa ansax meel marna waxaa jirto qodobo oo la isku haysto tusaale ahaan qodobada la isku haysto waxa kamid ah qodobka oo dhahayo oo waxaan oo dhan base-ka ama salku ah qodobka 5 sano qodobka 5 sano runtii dastuurka wuxuu ku qoran yahay af Soomaaliya ku qoran yahay Englishna ku qoran yahay waxa jirto qodob oo dhahayo hadii wax la isku qabsado qodobka hadii la isku qabsado af Soomaaliya hadii la isku qabsado ama English la isku qabsado meesha ugu dambeysay ee la tagayo waxa waaye oo raacayo kan afka Ingiriisiga ku qoran yahay dastuurka ku qoran yahay xiriirka Soomaaliya kubadda cagta dastuurka marka la sameeyo dad oo yani lawyers ama sharci yaqaan jiro dastuur oo dhan noocooda ku yimaado waxa tarjumaadeeda iska leh dadkaas oo dastuurka loogu talagalay hadii la isku qabsadeen kiis in tarjumaan aniga hadii aan dhaho aan tarjuma xitaa af Soomaali hadii uu yahay dhankaan doona aan ula bixi karaa ama macnaha aniga aan doona hadal waa margiyo kale ninba meel u jiid aniga meesha raba u jiidi karaa adigana meesha rabta u jiidi kartaa waxa dhacaysa marka 5 sano maxaa waay 5 sano waxa waay sida meesha ku qoran 5 sano ugu dambeysay qofkii activity-ga ama dhaqdhaqaaqi kubadda cagta not sport maaha kubadda cagta aan qayb ka ahayn qaasatan xiriir kubadda cagta dhaqdhaqaaqi u wada qofta aan qayb ka ahayn inay soo sharxi karin okay 5 sano nin kasta meel u jiitay congresska sida uu qoray laguna dhaqmaayay sanooyinka ka horeeyay oo dhan iyagana meel ay dhigeen tusaale ahaan dadkii laga diiday inay tartamaan muddo ka hor ana ka mid oo leeyahay 5 sano xiriir kubadda cagta ma ka mid noqon kartid iska daa inaan ka mid noqday maamulka xiriirka Soomaaliya kubadda cagta ka mid ah aniga waxaan ahaa kaaliya xogeeya xiriirka Soomaaliya kubadda cagta waxaan ahaa gudoomiye naadi waa soo ciyaaray waxa soo dhan meel laga fariisiyay sidaas la mid marka hadii la yiraahdo qof kasto way tartami kartaa waa la dhihi karaa heblo waa tartami karaa heblayna way tartami kartaa laakiin sidee lagu xaqiijinaa inay tartanto maaha in la yiraahdo qodobkan sida wax loo sheegaa maaha exaasarna dadoo soo galay in la yiraahdo maaha waxa la sameey karaa congresski marka hore baashan ansixiyay ayaa dib loogu laabanayaa congresskaas ayaa qodobkaasi meesha ka saari karo cid kale ama dawlad ha ahaato ama heblow ha ahaado ama heblaay ha ahaato oo dhihi karto qodobkaasi ma lagu dhaqmaayo waa in laga saaraa meesha ma jirto cid xaq u leh ama dastuurka xaq u siinaa oo aan ka ahayn congresska kooxaha oo dhan ee maamulada hadda la ansixiyo la sheegayo kuwaas ayaa fariisan karo oo qodobkaas meesha ka saari karo taas waxa ugu baxaya marka in 5 sano cid aan soo shaqeyn qodobka sida uu qoran yahay oo qofka si uu fasiratay fasirkeeda rasmiga uu yahay waxa lagu shaqeynayo in qof inta soo shaqeyn ay sax ahayn inay soo gasho sida maalmahan dhacaysa dhan oo lagu doodayo waxaan weydiinay wasiirkan weydiinay walaalkeen Maxamed Barre wuxuu sheegay in ay leeyihiin fasiraadeeda يعني أو أي فسرتين جودك دورشلا لكن أسأل أوسن يلين
meesha marka ma yeelina ma taal runtii waxa yaalo qodob baa yaalo oo yani fasiraad u baahan waxa ka fiicneed in wasaaradda ay u raadiso lawyers inay u raadiso oo ay soo sharciyeyso fasiraadiisa iyo qaabka loo fasiraayo ma aysan dhicin marka laga soo tago waxa jirto marka saan oo kale la soo qabsado yaa maal jira leedahay sportiga Soomaaliyeed kubadda cagta kaliya maaha waa badan sportiga Soomaaliyeed odayaal sportiga jiro oo yani waayila oo barnaamijkaas soo wadi jiray wasaaradda waxa loo qaatay inay u yeerto yani odayaasha sportiga nooc kasta ay ahaadaan oo xilal ka soo qabtay xiriirada iyo Olombikada Soomaaliyeed oo nool oo joogo wali dadkaas inay la tashato ma dhicin eedan hadda waxa taagan oo waxa la heesto waxa fiican in laga naqdo dhaxdhaxaad sharciga la raaco haddii sharciga la raaco oo dhaxdhaxaad laga naqdo wax walba way hagaagayaan laakiin haddii la yiraahdo wax kasto oo doorasho ma la qaban karo la'aantay ama wixii ka soo baxa anaka ma aqoonsanayno taas waxa waaye dastuur ma wax lagu dhaqmaayo ee waa wax kale waa insha Allah taala in la sameeyo xeer jajab waa la sameeyo karaa runtii dadka inay heshiiyaan doorashada ka hor way dhici jirtay adduunyada way ka dhacdaa xeer jajab la sameeyo hebelo adiga ana inta u tartamay idaf hebelo ana inta u tartamay idaf ana inta kaaga fiican iyo taageerada laga haysto kongareeska laga haysto ama teamska codka iska laga haysto in la kala xidxito simple waa iska dhamaanaysa laakiin hadii aysan jirinba sabab oo korka la isaga saaro habeeraatay ma jirto maxaa yeelay dastuur wuxuu ku dhaqmaa sidiisaba majority rules todoba qofood dil leeyahay afar qofood meesha raacad ayaa ansax ah saddex qofood ay soo hirto macnaha hadii aniga ii soo dacwooto oo aan iraado saddexdan qofood in la qanciyo la jirto meesha waxa laga tagay wixii dastuurka loo qoray laga tagay waxa rajeenayaa marka in la raaco majority-ga hadii majority-ga uu yahay dad dhahayo yani 5 sano ila soo dhaafay ma jirtee halkeen dadkaas waa fariisanayna go'aankaas waa tirtireena waa iska fududahay laakiin hadii la waayo numberkaas hadii la waayo waxa fiican Soomaaliya u fiican wasaaraddan u fiican xiriirka Soomaaliya kubadda cagtan u fiican in la dabaqo sharciga sida uu yahay banka ama Soomaaliya waxa la dhahay bana ku dhacayo tirti baatiga soo fargashay waa doorasho la boobaya yani heblo waxa laga diiday inuu tartamo waxaas oo dhan waxay ku dhacayaan in la dabaqi waayay dastuurkii in la aqoon waayay cidda tirti baatiga la dhahay tirti baati wasiirka waa weydiinay runtii wuxuu sheegay tirti baarti inuu ku simaha oo xiriirka Soomaaliyeed kubadda cagta inuu yahay ninka tirti baartiga wallahi warkaasna waxa waa mataqaanaa waxa rabaa sheegaya leeyahay waxa aniga aan rabo ayaan sheegayaa mana aha wayna caddahay in dawladda oo soo fargeliso inay tahay tirti baarti waxa fiican marka aqliga inuu taliya fiican saano kale marka la soo qabsado way dhacday doorashada ka horeysay maamul goboleedada way diideen arintan in doorashadaas ay dhacdo dhibaato badan ka dhacday isjijiida ka dhacay wasaaradda oo yani wasiir oo joogo waxa la sameeyay in baydhaba la isugu tagay xal la gaaray oo in dastuurka la raaco oo maamul goboleedada lagu qanciyay dastuurka waxa uu qorayo iyagana raali ku ahaadeen raaliga ay ku noqdeen doorashada ay ku dhacday maantana ay marayso iyaga inay codka ay lahaayeen cod ka badan ay helaan waa guul weyn runtii waxa fiican marka inta ibaadada buuq oo dhici lahaay oo boolis la soo dir lahaay oo doorasho ma la qaban karay waa la qaban karay waxa soo dhaw waxay noo keenayeen dhibaatooyin keenayeen waxa fiican gacmo geelay hoos loo dhaqaa leeyahay wasaaradda waxay mas'uul ka tahay sportiga ilaalinada Soomaaliya mas'uul ka tahay waxa fiican inay u noqoto hoggaan wanaagsan oo waxaas oo dhan dhameeyo laakiin hadii wasaaradda ay u muuqato inay dhinac la safato ay u muuqato yani waxa ay dhaqi kartana ma laha waxa ay qaban kartana habeeraatay ma laha waxa la rabaa qoorta labada garb u dhaxaysa inay noqoto wasaaradda waxay ku noqon kartaa hadalkeeda inuu controlnaado dadka oo yani is haysto inaysan qayb kamida inaysan yani hadal aan munaasib ahayn inaysan ka sheegin waa waxa kaliya ee lagu soo karo annaga waxaana dhalinyaranahay waxaan rajo badan ka leenahay wasaaradda sportiga oo aan aad ugu faraxsanahay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya in oo noo magacaabay nin dhalinyaro aad u mahadcelinaa laakiin booskaas dhalinyarada loo magacaabay war hal mar dhalinyarada la keenay shimbirti hal mar qaada dabka ee abuulka habartada ku gubtay inaan la naqanin dhalinyaranimada waa inay ka muuqataa wasaaradda wax qabadkeeda inay ka muuqato insha Allah taala intaas sana oo oomanayn waxaan jecelnahay dad waaweyn oo waayela inaan dib loogu soo celin wasaaradda waxa dhooji kara marka arintaas
wasaaradda isboortiga cid hadda mas'uuliyadda ka hayso waxaan ku soo gabagabeynayaa oo aan baaq u dirayaa wasaaradda isboortiga iyo guud ahaan dawladda Soomaaliyeed oo aan leeyahay dawlad oo jirin oo Soomaaliya dawlad aan ay tahay ee isboortiga ama xiriirka Soomaaliya kubadda cagta oo soo socda isqabsiga jiray waa lees dacwo jiray waxaan hadda taagan oo dhan way dhici jireen laakiin maskax fiyow oo intaas oo dhan ka baaraan degto ayaa oo dhaxdhaxaada ayaa ka shaqeyn jiray oo dadka isu jiijiidi jiray oo gruubada isu keenay jiray iyadoo waliba aan marnaba laga tagin dastuurka waxa uu qoray dastuurka waxa looga tagaynin qofka loo arkay inay dastuuriyan wax meesha ku qoray ay kor jeedo in lagu qanciyo Soomaalidu way isqanci kartaa geedku si sanfreys karnaa dawladdu waxaan ka codsanayaa in geedka ay noo noqoto oo xiriirka Soomaaliya kubadda cagta 22 doorashada waxa leeyahay ma dhacaayaba wax dhacaaya oo awood loo sheeganayo ma dhacaayo waa xiriirka Soomaaliya kubadda cagta hadii leeyahay waa madax banaan yahay wasaaraddu waxay ku leedahay run waay waa madax banaan yahay kongareeska waa madax banaan yahay run waay waa madax banaan yahay xiriir haddoosan jirin ciyaalkan ma bixi karaan markay yaawadaayo ma xulka qaranka Soomaaliya ayaa xiriirka inta laga tagaa waxa wasaaradda isboortiga ma wadayso taas waxa wax lagu qoslo waay waxaan ku soo gabagabeynayaa waxaa jiro wax xeer beegti dadka markay isqabsadaan dhibaato ay dhacdo sida hore soo sheegay waa lagu soo baxaa waxa ku soo baxda xeer beegti macnaha bulsho kasto waxay leedahay meel xeer beegti iyo qaab ay u maraan in garta lagu gooyo in waxyaabaha qaladka lagu saxo ay leeyihiin xiriirka Soomaaliya kubadda cagta sida xiriirada kale caalamiga wuxuu leeyahay xeer beegti qaas oo leeyahay hadii la isku qabsado doorashooyinka hadii la isku qabsado waxyaabo kasta oo la ku tacaluqa kubadda cagta waxa xaq loo leeyahay qofka dacwo qabto waa inay tagtaa kaas inay tagto معناها arbitration عالمي oo ay FIFA iyo IOC labadaba ay aqoonsan yihiin oo loo dhisay inay qaado dacwooyinka oo xeer beegtada weyn sportiga adduunka way simply dastuurka ku qoran tahay qofkii problem ka qabto waxay tagaysaa meel heblaayo oo ay kaas ay tagaysaa waxa la rabaa marka cid u dhaxaysa kaas iyo maxalada shaq xiriirka Soomaaliya kubadda cagta arrimihiisa u dhaxayso cid qaldan waa runtii waxay sameey kartaa oo kaliya xeer beegta ma naqon karto go'aan ma gaari karto ma dhigi karto waxaan waa jooji ma dhigi karto waxaan waa socodsiinaya ma dhigi karto macnaha majoranza wax wadayso ama ma wadi waxa soo dhama dhigi karto waxa u furan kaliya inay dhaxaadiso dhaxaad hadii laga tagana waa inay iyaga hormuud u noqdaan in dadkaas ay kula taliyaan inay aadan kaas taasaan ku soo gabagabeeyaa